maalka halkaa lagu daraa aakhirana ajar weyn baa laga helayaa adduunka inta la joogana waxa laysu yahay ayuu makhraati u ahaan doonaa marka waxaan rajaynayaa uun dadka halkan ku nool gaar ahaan dee soomaalida Kenya oo sinjiga iyo walaalnimaba ay naga dhaxayso inay gacanta weyn yeeshaan taa macnaheedu ma aha inaan Kenyaanka kale waxba ka doonin iyaguna waxa ku darsan karaa oo dee geeskana waa lagu wada noolyahay Afrikana waa la wada leeyahay laakiin waxaan isleeyahay idinka xil baa idin saarano xilkii walaalnimo idin saaran waxa la isu yahay inaan muujisaan baa idin saaran gacan weyn inaad geysataan baa idin saaran midna waan idin sheegayaa bal niyo cilmiga Ilaahay waxay tahayba Kenya wax weyn baa laga filayaa wax weyn ayaa laga filayaa waxa mararka qaar kool la gaarsiiyay Kenya deeqda iyo wixii ka yimaada way ka badan doonaa waxaynu gudaha ka ururnaa mararka qaar kool la gaarsiiyaa halkaas aad walaalnimada idin taala iyo expectationku filitaan halkaas uu joogaa oo aad buu sareeyaa de waxaan rajaynayaa una guntiga dheesha iskaga dhigtaan oo inta doontaba ha qaadatee expectationka iyo filitaanka ragga maqan iyo dumarka maqan dib ugu shir qabataan fariintayadana de waa taa loo duubay u shidaan oo waxa weyn laga filayo ay markaa iyagoo sida insha Allah ta'ala ay hargeysa yimaadaan oo markaa sharafta iyo walaalnimada iyo waxa inaga dhaxeeyay waxa la idin qofku walaalkiisa uu jecel yahay uu wax ka filaawo hadii aan jirin walaalnimo iyaguna waxba idin kama filaan marka wax weyn baa la idin ka filayaa waxaan rajaynayaa oo markan TV-da idin ka daawado halkan dadka jooga inay dad wanaagsan oo abaabulan oo dhinaca diinta iyo dhaqanka iyo Soomaalinimadaba ku adag in halkan taalo umman TV-da ka arka de waxaan isleeyahay intaasoo sharafood oo dushiina taala ina ilaalin doontaan oo markaa hargeysaan idinku soo dhaweyn doono idinka oo markaa walaalihiin wax weyn la garab istaagay insha Allah ta'ala waan idin ducaynaya ilaahayna waxaan ilaahay ka baryaa baladkana ku nooshin Allah nabad ka yeelo oo nabadda idin adkeeyo oo ummadda halkan ku wada nool ee kala diimaha in ilaahay de maartay isu maartay nabaddu waxay ku jiraysaa markay ummadda ilaahay meel ku wada abuuray markay saaqbasho ay iska wada noolaato wax badan baa nabadda ku hagaaga marka nabaddaana de in ilaahay Kenya iyo Nairobi ba u saadkeeyo intiina halkan joogteed waxaan u soo doonanay iyada ku dhex shaqaysataan iyada wax ku dhaxaysataan hadii iyada la waayay wax ma jirayaan marka ilaahay nabadda ha idin adkeeyo horumar Allah idin siiyo dhaqaalaha Allah idin kubciyo maalka haysataan Allah idin siyaadiyo de waxaan sugaynaa oo insha Allah idin noo yimaada oo walaalnimo nagu garab istaaga anagana de waxaan halka uga soo safray inaan kelmadda idin soo gaarsiiyo waanoo matalaya magaalada Hargeysa dadkeedii intii dibtu gaadhiyo gudigiiba inaan inta fariinta idin soo gaarsiiyo waxaan rajaynayaa intiina joogtaan inay imaartay idin soo gaadhay intiina maqana gaarsiin doontaan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.